بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض داوديال ميل كستو جوجتان كوسو دوادا برنامجka wargeysada iyo baraha bulshada waxay qoraan oo idin kaga imanaya codka bariga Afrika. Brisbane Times Australia hooyo Soomaaliya oo lagu xukumay 14 sano oo xadhiga kadib markii ay gudniin fircooniya ku samaysay laba hablood oo ay dhashay. haweeney Soomaaliyeed oo haysta jinsiyadda dalka Australia ayaa maxkamad ku taala gobolka Queensland ku xukuntay 14 sano oo xabsi ah kadib markii ay ku heshay fal dambi ay aqoonsatay oo ay laba gabdhood oo ay dhashay ay Soomaaliya ku soo guday. gabadhan ay warbaahintu soo dhinaca sharciga ah awgeed magaceeda qarisay ayaa maxkamadda horteeda ka daadifaysay inay hablaheeda oo markaas 12 sano iyo 9 sano jiray ay u kaxaysay Soomaaliya sanadkii 2015 loogu soo gudo. garsooraha maxkamadda degmada Brisbane ayaa Arbacada maanta 13 February 2019 ku dhawaaqay inay u cadaatay in hooyadan Soomaaliyeed ah oo 45 sano jir ah ay labadeeda gabdhood geysay Soomaaliya maalmo kooban markii ay joogeen ay ku sameysay gudniinka. maxkamaddu waxay qaadatay maragga labada hablood oo iyagu ogolaaday inay waramaan. waxay sheegeen in la geeyay guriga ayaydood oo ay hortiisa ku ciyaarayeen intii loo diyaar garoobayay. markii la diyaariyayna iyagoo aan waxba loo sheegin gudaha aqalka loogu yeedhay si khiyaamo ahna loo qabtay. waxay ku cawdeen inaanay weli ilaawin xanuunka la mariyay maadaama sida ay sheegeen qalinka lagu sameeyay iyagoo aan la suuxin. waxay labada hablood sheegeen in markii qalinka lagu sameeyay ay hooyadood qolka kula jirtay ogolaanshiyaheedana hawsha oo dhami ku dhacaysay. kadibna intii ay dhaawaca ka bogsanayeen ayadu daryeelkooda gacanta ku haysay. dhaawaca ay hore uga bogsan waayeen awgeed ayaa qaadatay in muddo 7 bilood ah kadib dib loogu soo celiyay dalka ay u dhasheen Australia. inan kale oo ay labada hablood walaalo kala bahayeen ayaa markii ay sheekada labada hablood ogaatay warka gaarsiisay xarunta adeegga badbaadada carruurta oo dacwadda soo oogtay kadib markii habluhu ogolaadeen in Booliiska ay uga waramaan dhacdadan taasoo horseeday in hooyadood maxkamadda la soo taago. hooyada oo Booliisku wareystay ayaa ku dooday in sababta ay Soomaaliya ugu safartay ahayd inay hooyadood soo eegto balse waxa ay diiday in gudniin ama wax kale oo dhibaato ah loo geystay. hooyadan ayaa maxkamadda ka codsatay in xukunka loo dabciyo iyadoo ku sabaysay inay qabto cudurka kansarka iyo xanuun dhinaca dhabarka ah. Daily Monitor Uganda ugu caansan AMISOM ayaa xidhaysa qaar ka mid ah xeryaha ay ku leedahay Soomaaliya sidoo kalena isbedel ku sameynaysa xeeladaha dagaal ee ku hawlgeli jirtay. taliska ciidamada midowga Afrika ee ka hawlgala Soomaaliya ayaa qorsheynaya in dhamaadka bishan ay xidhaan qaar ka mid ah saldhigyada AMISOM ee jiida hore iyo gurmadka kadib marka 1,000 askari laga dhimo tirada guud ee ciidamada hadda jooga Soomaaliya. dhimista 1,000 askari oo ah wajiga labaad ayaa qorshuhu ahaa in sida uu dhigayay amarkii qaramada midoobay la fuliyo bisha December ee sanadka 2018 laakiin dib u dhac ayaa ku yimi. dhimistiisan ka horeysay ee ciidamada AMISOM waxay dhacday bishii December ee sanadkii 2017. war lagu faafiyay wargeyska caanka ee Daily Monitor oo ka soo baxay dalka Uganda ayaa lagu sheegay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu doonayo in ciidamada AMISOM ee Soomaaliya jooga ay marka la gaaro sanadka 2020 si tallaabo ah howlaha ammaanka ugu wareejiyaan ciidamada qaranka ee Soomaaliya. laakiin AMISOM waxay sheegaysaa in ciidamadeeda oo la dhimaa ay sababayso marnaanshiyo ammaan maadaama sida ay sheegtay ciidamada Soomaaliya aanay dhisin tamartii ay kula wareegi kari lahaayeen jiidaha ay ka baxayaan ciidamada AMISOM. taliyayaal militari oo ka socda dalalka ay ciidamadoodu ka joogaan Soomaaliya ayaa kulan ku yeeshay magaalada Muqdisho si ay uga arrinsadaan natiijada ka dhalan karta dhimista tirada ciidamada iyo inay dejiyaan qorshaha lagu magacdaray fikradaha howlgallada oo magaciisa loo soo gaabiyo Campus kaas oo ah sida loo soo ilaalin karo joogitaanka wax ku ool ah oo ay ciidamada AMISOM ku sii yeeshaan Soomaaliya marka tiradooda la dhimo si aan ururka Al-Shabaab uga faa'iideysan. qorshaha cusub waxaa ka mid ah in la xidho tiro ka mid ah saldhigyada jiida iyo gurmadka ee AMISOM kuwa kalena la soo ururiyo maadaama oo la yaraynayo tirada ciidamada AMISOM. si kastaba ha ahaatee AMISOM waxay hubisay in isbedeladaas fulintooda la garab wado feejignaan aad u sarreysa oo dhinaca badbaadada iyo nabadgelyada bulshada ku nool deegaanada ay AMISOM ka guurayso. waxaa sidaas lagu yiri warmurtiyeed isniintii 11 February ka soo baxay AMISOM sida uu ku waramayo wargeyska Daily Monitor. taliyaha cusub ee AMISOM Sireye Good Tigabu Yelma ayaa isaguna isla isniintii sheegay in hadda kadib ay AMISOM xooga saari doonto howlgalladeeda weerar ee bartilmaameedka leh si looga hortago in ciidamada AMISOM ay ku filqamaan howlgallo weerar oo aagaga furana. taliyaha AMISOM waxa uu sheegay si loo suurtageliyo qorshahan in joogitaanka AMISOM uu sida hadda u sii awood badnaado inay Al-Shabaab ku qaadi doonaan weeraro bartilmaameedsanaya Al-Shabaab oo ay ku yareynayaan awooddeeda
kana hor istaagaya inay si xorriyada u wadato dhaqdhaqaaqyadeeda iyo howlgalladeeda ay fuliso. Sarreeye guud Tagaabu Yelma oo ah taliyihii ugu horreeyay ee Etoobiyaan ah ee ay ciidamada AMISOM yeelato waxaa xilka 2 toddobaad ka hor kala wareegay jenaraal ka soo jeeda dalka Uganda oo ahaa taliyaha. Washington Post Mareykanka dowladda Kenya ayaa sii deysay Soomaali sidata jinsiyadda dalka New Zealand oo loo haystay tuhno argagixiso. Maxkamad ku taalla dalka Kenya ayaa sii deysay nin asalkiisu yahay Soomaali oo jinsiyadda dalka New Zealand sita, kaas oo bilayska dalkaasi xabsiga u taxaabay dhowr maalmood kadib markii uu ku tuhmay inuu xidhiidh la leeyahay ururada argagixisada. Ninkan lagu magacaabo Sulub Warafa ayaa markii la sii daayay maxkamadda degmada Gaarisa horteeda warbaahinta uga sheegay in dambiga kaliya loo haystay uu ahaa inuu ku dhashay magaalada Muqdisho oo laga sameeyay tuhna inuu argagixisada xidhiidh la leeyahay. Sulub Warafa oo 36 sano jir ah waxa uu sheegay in muddadii uu booliisku hayeen aanay wax jirdil u geysan, waxaana uu tilmaamay inuu ku faraxsan yahay inuu xorriyadiisa uu dib u helay. Sulub Warafa iyo 10 qof oo kale ayaa toddobaadkan horaantiisii lagu soo qabtay olole amni oo ay bilayska Kenya ka sameeyeen deegaanada ku dhow xuduudka dalka Kenya la leeyahay Soomaaliya iyo xeerada qaxoontiga ee Dadaab. Baadhistii lagu sameeyeyna waxaa lagu helay inuu sitay 2 baasaboor oo 2 magac kala duwan ay ku qoran yihiin. Warkan oo wargeyska Washington Post ka soo xigtay wakaaladda wararka ee AP ayaa intaasi ku daray intii ka dambeysay bishii January weerarka lagu qaaday hodheelka Nairobi ku yaalay ee ku dhintay 11 qof in ciidamada ammaanka ee Kenya ay dad badan u qabqabteen tuuna la xiriira argagixiso. wargeyska Star Tribune ee dalka Canada garsoore sii daayay Soomaali 15 sano sugayay in loo mastaafuriyo Soomaaliya. garsoore dhinaca arrimaha socdaalka ah ee salaasadii 5 February ansixiyeen la sii daayo Cabdilqaadir Shariif Cabdi oo ah Soomaali hore loo go'aamiyay in laga soo mastaafuriyo dalka Mareykanka oo muddo dheer maxkamadda kaga hordoodayay sidii mastaafurintiisaas looga baajin lahaa. go'aankan oo yimi kadib muddo aad u dheer oo Cabdilqaadir dagaal ugu jiray sidii looga baajin lahaa mustaafirinta ayaa markii uu garsooruhu ku dhawaaqay go'aanka waxa mar kaliya mashxarad iyo dhawaaq farxadeed isla ogsaday saaxiibadii iyo dad badan oo qoyskiisa ah oo dhagaysanayay. warka lagu baahiyay wargeyska Star Tribune ee ka soo baxa dalka Mareykanka ayaa lagu sheegay in dawladda Mareykanku ay sanadihii u dambeeyay kordhisay tirada dadka Soomaalida ah ee u mastaafirinaysa Soomaaliya. laakiin maxkamadda dhinaca socdaalka ee magaalooyinka Minneapolis St. Paul oo lagu magacaabo caasimadda mataanaha ah ayaa sanadkii hore ogolaaday inay dib u eegis ku samayso dacwadda Cabdilqaadir kadib markii qareenkii difaacay uu sheegay in Cabdilqaadir haddii Soomaaliya lagu celiyo ay noloshiisu khatar galayso maadaama oo sida uu si aad ah u dhaleecayn jiray ururka Al-Shabaab. qareenka oo lagu magacaabo John Browning ayaa sheegay in Cabdilqaadir haddii dhulkiisa hooyo lagu celiyo ay sidoo kale khatari ka soo gaadhi karto dadaalka uu ururka Al-Shabaab ku raadiyo inuu qasab askar kaga dhigto ragga Soomaaliya sida hadalka loo dhigay. Cabdilqaadir oo dalka Mareykanka qaxoontinimo ku galay sanadihii 90-maadkii ayaa wargeysku sheegay inuu ku biiray dhalinyarada rabshadaha iyo falalka burcadnimada ah ku kaca. ugu dambeyntiina waxaa lagu helay dambiye la xiriira tuugo iyo maandooriye. sanadkii 2002 ayaa la amray in Mareykanka laga mastaafiriyo muddada sanadada ahna waxa baadhis ku waday laanta socdaalka oo inta uu mastaafiriska sugayo joogto ugu tagi jiray. wargeysku waxa uu sheegay in imika Cabdilqaadir ka hadhay noloshii burcadnimada waxa uu noqday xubin firfircoon hormuud u ah dhalinyarada Soomaalida ee ka soo kabanaysa la qabsiga balwadaha. waxa aanu maamulo ka noqday xarun ku taala Minneapolis oo dadka lagaga dabiibo la qabsiga maandooriyaha. si kastaba ha ahaatee bishii January ee 2018 ayaa Cabdilqaadir xidhan biliiska oo baadhis joogto ah ku sameyn jiray. waxa aana loo diiwaangeliyay inuu ka mid noqdo rakaabka diyaarad Soomaali geynaysay 69 qof oo la mastaafiriyay. laakiin qarankiisa oo sababo sharci ah cuskanaya ayaa ku guuleystay inuu safarkaas baajiyo. waxay ahayd bishii November 2018 intii ka dambeysayna Cabdilqaadir waxa uu ku jiray xabsi uu ku sugay go'aanka kama dambaysta ee garsoorka. go'aankaas oo salaasadii soo baxayna waxa uu noqday in xorriyadiisa dib loogu celiyo. wargeyska Times of Malta ayaa qoray meydka maariyihii takada Boosaaso oo meydkiisa la geynayo dalkiisa dawladda Imaaraadka
oo Puntland ka dalbatay in la adkeeyo ammaanka dekedda iyo shaqaalaheeda. wargeyska Times of Malta ayaa cadadkiisii Khamiistii 7 February ku sheegay in dalka Malta loo qaadayo meydka Paul Anthony Formosa oo ah maamulihii dekedda Boosaaso ee shirkadda B&O ee dhawaan la dilay. haweeney u hadashay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Malta ayaa sheegtay in shirkadda uu ninkan u shaqaynayay oo ay dowladda Dubai leedahay ay gacanta ku hayso qabanqaabada qaadista meydka. wasaaradda arrimaha dibadduna ay kala shaqaynayso dhammaystirka hawshaas. dhinaca kalena dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ayaa cambaaraysay dilka Formosa. wasaaradda arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in ay la xidhiidhay maamulka sare ee shirkadda B&O si ay ugu tacsiyadayso dilka mas'uulkan u shaqaynayay. tacsiir la mid ahna waxa ay u dirtay qoyska, asxaabta iyo dadkii ay wada shaqaynayeen Formosa. wasaaraddu waxa ay sheegtay in ay la socoto baadhitaanka lagu wado sababaha dilkan iyo sida uu u suurta galay. war lagu baahiyay wargeyska The Gulf News ee ka soo baxa dalka Imaaraadka ayaa lagu sheegay in wasaaradda arrimaha dibaddu ay dowladda Puntland ugu baaqday in ay sugto nabadgelyada dekedda iyo shaqaalaheeda si uu u sii socdo maalgashiga faa'iidada u ah dadka Soomaalida ah. Formosa oo 52 sano jir ah ayaa 2 nin oo hubaysan Isniintii 4 February ku dileen gudaha dekedda magaalada Boosaaso oo wakiil uga ahaa shirkadda B&O ee maamusha. 2 nin oo baastoolada ku hubaysan ayaa isu ekeysay kalluumaysato si ay gudaha ugu galaan dekedda, kadibna dhowr xabadood ayaa ay madaxa kaga dhufteen Formosa. 3 ruux oo iyaguna shaqaalaha dekedda ka mid ahaana waa ay dhaawaceen. Formosa ayaa tan iyo bishii August ee 2017 u shaqaynayay shirkadda B&O oo qayb ka ah shirkadda DP World oo qandaraas 3 sano ah kula wareegtay maamulka iyo horumarinta dekedda. wargeyska Addis Ababa Standard ayaa waxa uu qoray jabhadda ONLF oo heshiis hubka dhigis oo rasmi ah la saxeexatay dowladda gobolka Soomaalida Itoobiya. dowladda gobolka Soomaalida Itoobiya ayaa Jimcaha 8 February heshiis hubka dhigis iyo qarameyn ciidan la saxeexatay mas'uuliyiinta jabhadii xoreynta ogaadeen ee magaceeda loo soo gaabin jiray ONLF oo hore uga mid ahayd ururo ay dowladii hore Itoobiya ku dareen liiska argagixisada ayaa laga saaray markii uu talada la wareegay ra'iisul wasaaraha Imiko oo ugu baaqay wada hadallo nabadeed. tallaabadaas oo qayb ka ahayd dadaal dib u habeyn ahaa uu ra'iisul wasaare Axmed Waday sababtay in guud ahaan dadkii Itoobiyaanka ah ee dalka dibadiisa sababo siyaasi ugu maqnaa ay dalka dib ugu soo noqdeen. waraanu ka soo xigeenay wargeyska The Addis Ababa Standard ee dalka Itoobiya ka soo baxa ayaa sheegay in heshiiskan taariikhiga ah ee labada dhinac jijiga ku kala saxdeen ay farxad iyo damaashaad ku soo dhaweeyeen 100 qof oo la arkayay iyaga oo dabaaldegaya. marka laga tago hubka dhigista iyo dhexgalka bulshada, waxaa kaloo ay labada dhinac ku heshiiyeen in ay wada shaqayn iyo iskaashi ka yeeshaan sidii loo soo afjari lahaa faqriga, xadgudubyada ka dhanka ah bini'aadanimada iyo maamul xumada dadka Soomaaliyeed ee Itoobiya ay muddada dheer ku soo hoos noolaayeen. iyadoo ururka ONLF dhankiisa ballan qaaday in uu intii awoodiisa ah ka shaqayn doono nabadda gobolka. muuqaalo damaashaad iyo farxadeed ah ayaa heshiiskan awgii laga dareemayay magaalada Jigjiga gaar ahaan madasha uu ka dhacay heshiisku oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiin ONLF ka tirsan oo mar argagixiso ku calaamadaysnaa. mas'uuliyiinta dowladda gobolka Soomaalida, mas'uuliyiin ka socota dowladda federaalka ah iyo boqolaal dadweyne ahi. 1740 ciidamo hubaysan ah oo ka tirsan jabhadda ONLF ayaa uu heshiiskan si rasmi ah ugu wareejiyay dowladda gobolka Soomaalida Itoobiya. waxaanu ciidankaasi hadda kadib u qaybsami doona ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha rayidka ah ee dowladda. sanadkii 1984 ayaa la aasaasay jabhadda xoreynta ogaadeen oo ku dagaalamaysay aragti ah in ay dhulka Soomaalida Itoobiya ka hoos saarto dowladda Itoobiya. dagaal jabhadeyn ah oo 30 sano kor u dhaafay kadibna waxay jabhaddu xabad joojin ogolaatay
bishii 7 ee sanadkii 2018 kadib markii uu ra-iisul wasaare Abiy Ahmed uu ku baaqay wadahadal. intii ka dambeysay waxaa socday wadahadallo ay jabhadu la lahayd dowladda federaalka iyo dowladda gobolka Soomaalida, kuwaas oo ugu dambeyntii soo gaadhay in maalintii 8 February ay jabhadu ciidamadeeda iyo hubkeeda ku wareejiso dowladda gobolka Soomaalida, isuna diyaariso in ay noqoto urur siyaasadeed ogol in uu ka qayb qaato nidaamka dowladda gobolka Soomaalida ka tirsan federaalka Itoobiya. inta haddii aynu kaga nimaadno wargeysada ka soo baxa caalamka, imikii haatan aanu eegno wargeysada ka soo baxa magaalada Hargeysa iyo waxay qoreen. geeska Afrika oo xogo ka helay wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya iyo garnaqsiga madaxweyne Biixi u bandhigay ergeyga Turkiga iyo qorshaha madaxweyne Farmaajo wadahadalada la rabo. xisbiyada waxa waajib ku ah inay isku yimaadaan oo ka tashadaan komishanka cusub. DP World oo kordhinaysa tacriifada ay ka qaado alaabta ka soo degta dekada Berbera 42.8%. imikana aynu soo qaadano wargeyska Himilo oo ka soo baxa magaalada Hargeysa. dowladda Somaliland oo Ingiriiska ka codsatay inaanay ku darin dalalka ay ka mamnuucday inay muwaadiniintooda yimaadaan ee Soomaaliya ku jirto. imikana aynu soo qaadano qodobadii hore aan idinku soo sheegnay iyo faahfaahintooda. wargeyska geeska Afrika ayaanu soo qaadanaynaa. sida warkani sheegay, madaxweyne Biixi ayaa ergeyga Turkiga u bandhigay garnaqsi ku saabsan macaawinooyinka uu Turkigu siiyo Soomaalida iyo sida aanu saami cadaaladeed ugu qaybin Somaliland iyo Soomaaliya. waxaana la sheegay in ergeyga Turkigu uu qodobkaas kaga jawaabay in haddii wixii ka dambeeya in Turkigu Somaliland si ballaaran uga caawin doono dhinacyada caafimaadka, waxbarashada, biyaha iyo korontada. waxaanu sidoo kale madaxweyne Biixi ergeyga uu sameeyay ballanqaadyo cusub oo dhinaca mucaawimada ah. dhinaca wadahadalada, warku waxa uu sheegay in Turkigu doonayo inuu wadahadalada ku haysto qandaraas oo isagu hogaamiyo, laakiin waxa warka geeska Afrika helay sheegay in madaxweyne Biixi ergeyga u bandhigay inay Somaliland doonayso in Turkigu la wadaago hogaaminta wadahadalada. waxaana la sheegay inay Somaliland soo jeedisay in hogaaminta wadahadalka lagu soo daro dowladda Sweden iyo hay'adda xalinta khilaafaadka dunida ee The Center for Humanitarian Dialogue HD oo qaybta farsamada ka caawin doonta wadahadalada. waxaa kaloo warku sheegay in madaxweyne Biixi ergeyga Turkiga u soo jeediyay in dhowr wadan oo laga dhigo guddi farsamo oo taageero wadahadalada oo isha ku haya dushana kala socda fulinta wixii lagu heshiiyo. dalalka ay Somaliland soo jeedisay ayaa waxaa ka mid ah Mareykanka, Ingiriiska, Norway iyo Midowga Yurub. waxaa kaloo la sheegay in Somaliland ergeyga u sheegtay faragelin siyaasadeed oo kala duwan oo ay dowladda Soomaaliya ku hayso Somaliland. faragelintaas oo caqabado ku noqon karta wadahadalada. si rasmi ah looma oga mowqifka uu ergeyga Turkigu ka qaatay soo jeedimaha madaxweyne Biixi, waxaase la filayay in dowladdiisu kula noqon doono qodobada ay Somaliland u soo bandhigtay si ay wadahadaladu u bilaabmaan. waxaana la sheegay in diblomaasiga Turkigu u muuqday inuu soo dhaweeyay soo jeedimaha madaxweyne Biixi. geesta kale, Danjire Olgan Becker oo lugtiisa ku soo horumariyay magaalada Muqdisho ayaan la kulmin madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. bedelkiisana wuxuu kulan quraac ah la yeeshay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Cawaad oo loo arko inaanu saameyn culus ku lahayn go'aamada madaxtooyada Muqdisho. wararka uu geeska Afrika helay waxay xaqiijiyeen inaanu madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo doonayn in la ballaariyo wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya oo laga soo jeediyo indhaha warbaahinta caalamka. waxaanu taas bedelkeeda doonayaa sida ay shabakada wararka ee Somaliland sanbaahisay in wadahadaladu ku furmaan jawi hoose. shabakada wararka ee Somaliland san ayaa warisay in madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo uu doorbiday inay Djibouti hogaamiso wadahadalada oo aan wadahadalada laga saarin xayndaabka gobolka geeska Afrika. shabakadu waxay sheegtay in wadahadaladu dhawaan furmi doonaan isla markaana ay Somaliland iyo Soomaaliya Turkiga ka aqbaleen in dib loo bilaabo wadahadalada.
kaasi wuxuu ahaa qodobkii wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya. xisbiga mucaaradka ee UCID ayaa ku baaqay in xisbiyada Somaliland ay isugu yimaadaan wadatashi ay ku soo dhisayaan commission doorasho cusub. waxa uu xisbigu sheegay inaanay commissionka haatan aanay qaban karin doorashada kadib markii muddo kordhinta golaha guurtooda ay sameeyeen ay ka dhigtay kuwo aan gaari karin bisha 12aad ee sanadkan. waxaana commissionka doorashooyinka muddo xuleedkeedu ku eegyahay bisha November. Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax ku-xigeenka xogayaha guud ee xisbiga UCID ayaa sidoo kale sheegay in la soo dhiso commission doorasho ka kooban 9 xubnood kuwaas ay hore ugu heshiiyeen xisbiyada Kulmiye iyo UCID. xogaya ku-xigeenka xisbiga UCID oo la hadlayay telefishinka Somali Cable waxa ugu horeyntii ka hadlay inay xisbiyada Somaliland isugu yimaadaan ka tashiga commissionka doorasho oo cusub. xisbiyada waxa ku waajibaha inay isku yimaadaan commissionka cusub ee hawshaas qaban lahaa laga wada tashado. waxa uu ka hadlay tirada commissionka cusub sida ay ku wadaan commissionka cusub tiradiisi. haddii aad ii weydiinaysaan labadayadaba xisbi Kulmiye iyo UCID waxaan hore isula waafaqnay heshiisna aanu ku galnay waraaqaheedina aad ogeydeen oo meel walba aanu ku faafinay in commissionka cusub ay tiradiisu noqoto 9 xubnood. sida loo kala qaadanayo iyo meelaha ay ka kala imanayaan weli waa arrin noo taala oo aanan heshiis ka gaadhin, laakiin waxaanu isla waafaqsanahay in commissionka cusub uu noqdo 9 xubnood. kaasina waxa uu ahaa qodobkii xisbiyada iyo ka wada tashiga commissionka cusub. DP World oo dekada berbera ku kordhinaysa tacriifadeeda ay ka qaadato alaabta ka soo degta dekada berbera 42.8%. dabayaaqadii bishii hore ayaa maamulka DP World berbera ku wargeliyeen ganacsatada isticmaasha dekada inay wax ku bedel ku sameyn doonaan qiimaha sarifka lacagta kaas oo ah hadda mid ay dawladdu u goysay in halkii dollar lagu sarifo 7,000 oo shilin. wareegtada ka soo baxday DP World ayaa lagu sheegay in qiimo dhac weyn uu ku yimid shilinka Somaliland labadii sano ee u dambeeyay uu sabab in aan wax ka bedelno qiimaha sarifka oo la fariisiyay January 2016. muddadii ka dambeysayna lacagta Somaliland ee shilinku aad hoos ugu dhacday kana dhigtay lacagta laga qaado hadda ganacsatada mid aad u hooseysay kana hooseysay lacagtii ay ahayd in laga qaado ayaa lagu yiri wareegtada DP World. waxa kale oo ay sheegtay DP World berbera in qiimo dhaca shilinku saameyn doonto awoodda DP World berbera ay ku sii wadi lahayd maalgelinta dekada berbera iyo gaarista ujeedadii ahayd in dekadu berbera laga dhigo tan ugu casriyeysan geeska. su-aasha isweydiinta leh ayaa DP World ma waxay ku maalgelinaysaa dekada lacagta laga qaado dekada mise lacagta iyadu leedahay ayay gelinaysaa? runtii arrintan ayaa mid aan hore dadku ogeyn laakiin ku noqotay yaab. waxay DP World berbera ku bedelaysaa qiimaha hore ee isku bedelka lacagta ee ay soo saartay dawladdu qiimaha suuqa uu ka marayo dollarku kaas oo ah ama aan noqonaya halka dollar lagu sarifi doono 10,000 oo shilin. waxaana arintani ka dhigan tahay inuu qiimihii ay ganacsatadu hore u bixin jirtay ay ku korodhay lacag dhan 3,000 oo Somaliland shilin una dhiganta 42.8% korodhka ah. imikana aanu soo qaadano wargeyska Himilo ee ka soo baxa magaalada Hargeysa iyo qodobka uu qorayo dawladda Somaliland oo Ingiriiska u dirtay in aanay digniinaha ay u dirtay muwaadiniinteedu in aanay u safrin dawladda Soomaaliya in aanay ku darin. dawladda Somaliland ayaa ka hadashay digniinaha dhanka ammaanka ah oo dawladda boqortooyada Ingiriisku soo saartay. dawladda Ingiriiska ayaa toddobaadkan war ay soo saartay waxay muwaadiniinteeda ku sugan dalkii la isku oran jiray Soomaaliya oo Somaliland ku jirto ku waanisay inay ka feejignaadaan falal amni darro oo ay sheegeen inay maagan yihiin kooxaha jira ee ka dagaalama dalka Soomaaliya. halka muwaadiniinteeda kalena u soo jeedisay inaanay u safrin sida uu baahiyay telefishinka Saab wargeyska Himilo warkan ka soo xigtay.
wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Maxamed Muuse Diiriyo oo la weydiiyay waxay xukuumaddu kala socoto digniinta amni ee dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay in og yihiin digniinta ay dowladda Ingiriisku siisay muwaadiniinteeda laakiin ay dowladda boqortooyada Ingiriisku uu sheegay inay ka fiirsato digniinaha amni ay siiso muwaadiniinteeda ku sugan Soomaaliya maadaama buu yidhi xilligan ay laba dal kala yihiin Somaliland iyo Soomaaliya kaasna waxa uu ahaa wargeyska Himilo ee ka soo baxay magaalada Hargeysa iyo digniinta Ingiriiska u diray dadkeeda muwaadiniinta inaanay u safrin dalka Soomaaliya. wargeyska saxafiga ka soo baxay magaalada Hargeysa ayaa cadadkiisa 2160 waxa uu ku qorayaa xisbiga wicid oo aragti hor leh oo la xidhiidha guddiga doorashooyinka soo qadimay. waxa kale oo wargeyska saxafi boggiisani ku qorayaa madaxweyne Donald Trump iyo xildhibaan Ilhaan Cumar oo is haysta. wargeyska waa bari ee isna ka soo baxay magaalada Hargeysa ayaa cadadkiisa 58 waxa uu ku qorayaa garabkii Jamaal Cali Xuseen oo gacmo maran ka taagan xisbiga kulmiye. aan soo qabto wargeyska Hubaale isna ka soo baxay magaalada Hargeysa cadadkiisa 1408 waxa uu ku qorayaa haddaan dhinto xabaashayda ha imanina aas qaranahay sameynina wasarkal ka tirsan ciidanka booliska Somaliland oo xaalad caafimaad u jiifa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo fariin u diray madaxda taliskiisa. aan soo qabto faahfaahinta qodobadaasi ay qoreen wargeysyada ka soo baxa magaalada Hargeysa aan ku horeeyo wargeyska saxafi xisbiga mucaaradka ah ee wicid ayaa sheegay in guddida doorashooyinka qaranka Somaliland aanay qaban karin waqtiga loo mudeeyay doorashada golaha wakiilada iyo Somaliland maadaama uu muddo xiloodkoodu ka horeynayo xilliga loo mudeeyay doorashooyinkaasi. xogeeye ku-xigeenka guud ee xisbiga wicid Cabdinaasir Yuusuf Cismaan Qodax ayaa sheegay in loo baahan yahay in xisbiyadu ay isku tashadaan oo ay la yimaadaan qorshe dalka doorasho kaga qabsoomi karto. guurtida doorashada waxa ay mudeysay 13 Disembar guddida doorashada ee hadda joogaana waxa uu waqtigoodu ku eegyahay 19 bisha ka soo horeysa ee November markaasi guddidani doorasho qaban maayaan taasina waa ay caddahay oo qof kasta uu og yahay sidaas ayuu yidhi xogeeye Cabdinaasir Qodax. intaasi waxa uu ku daray isagoo hadalkiisa sii watana yidhi xisbiyada waxa uu taala marka uu guddida doorashada waqtigoodu ka dhamaado inay isugu yimaadaan sidii looga arrinsan lahaa guddiga cusub ee doorashada qaban lahayd waxaana annaga iyo xisbiga kulmiyana ku heshiinay in guddida doorashooyinka ee cusub ay noqdaan 9 xubnood. aan soo qabto qodobka ku xiga iyo isla wargeyska saxafi madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa ugu baaqay Ilhaan Cumar inay isxasisho. Ilhaan Cumar oo kamid ah xubnaha Koongareeska Mareykanka kadib markii ay baahisay qoraal ay ku muujinayso yuhuud nacaybka oo ay soo dhigtay boggeeda ay ku leedahay Twitter-ka. madaxweyne Trump ayaa sheegay in yuhuud nacaybku aanu marnaba boos ku lahayn Koongareeska gudihiisa. sidaasi daraadeed waxa uu ugu baaqay Ilhaan inay iska xasisho Koongareeska Mareykanka ama guddida arrimaha dibadda oo ay kamid tahay. Ilhaan Cumar oo ah gabadha salkeedu Soomaaliya ay kana tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ayaa dhaleecayn adag oo ay kala kulantay qoraalkan ay soo dhigtay boggeeda oo ay ku sheegtay in ururka IPAC oo ah guddi u qaabilsan arrimaha yuhuudda Mareykanka uu lacag ku bixiyo taageerada Israa'iil laakiin raaligelin ay markii dambe ka bixisay qoraalkaas rabshada ku keenay. madaxweyne Trump ayaa raaligelinta Ilhaan ku sheegay mid aan daacad ka ahayn isagoo intaasi ku daray in ereyada ay isticmaashay yihiin kuwa gunta hoose ee qalbigeeda ka soo go'ay oo walina kaga jira oo ay aaminsan tahay. waa markii ugu horeysay madaxweynaha dalka Mareykanku uu si toos ah u weeraro Ilhaan Cumar oo dhawaan ku soo beertay Koongareeska Mareykanka. garabkii New Wicid ee uu hogaamiyaha u ahaa Jamaal Cali Xuseen ee la midoobay xisbiga kulmiye sanadkii 2017 ayaa sheegay in shirka golaha dhexe ee kulmiye aan xataa goob joogaya looga ogolaanin. siyaasi Cali Kure oo kamid ah xisbiga kulmiye isla markaasina kamid ah garabkii xisbiga wicid ee Jamaal Cali Xuseen kula biiray kulmiye ayaa sheegay in xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba ay faramaran ka joogaan shirweynaha dhexe ee xisbiga kulmiye. mujaahid Cali Maxamed Yuusuf Cali Gure oo qoraal arrintaasi ku saabsan ku faafiyay boggiisa Facebook uu ku leeyahay ayaa yidhi ummadii dhammaydeen New Wicid soo kuwii kula midoobay ee heshiiska la galay kulmiye aniguna aan taageeraha kulmiye noqday maanta xaalkoodu ma u faalay yidhiba waxaan maqlay xataa goob jooga loogama ogolaanin madasha kulmiye qof shaqo ka helay xukuumadda kulmiyana waxaan ogahay hal qof oo kaliya qaar baa aniga ila soo xiriira oo marka waxaan ugu jawaabaan garan waayo ku idhaahdaa insha Allah khayr. dhanka kale siyaasi Cali Kure ayaa sheegay in saddexda xisbi qaran ay yihiin qaar isku mid ah oo aan waxba isdhaamin. dad baa u haysta xisbiyadu inay yihiin saddex laakiin ma aha waa guri kaliya oo saddex qol ah qolkii aad joogtaaba soo gurigii un maaha
jamaal cali xuseen ayaa bilowgiiba ka maqnaa caleemasaarkii madaxweyne biixi oo uu sheegay inaan garabkiisa la maamuusin lana siinin kaadhadhka xafladda sidaasina hal kaadhoo la siiyey uu ku diiday waxaanu hadda u muuqdaa mid aan la dhacsanayn sida ay wax u socdaan aan soo qabto qodobada kale uu qoraya wargeyska Waaberi hirdanka DP World iyo Djibouti ee maamulka dekedda Doorale oo u wareegay Hong Kong shirkadda DP World Imaaraadka ayaa maxkamadda sare ee Hong Kong dacwad kaga furtay shirkadda Shiinaha kaabto ee China Merchants Port Holdings Company Limited wakaaladda Factwire ayaa heshay waraaqaha dacwadda ee DP World oo u buuxdeedu tahay in shirkadaha Shiinuhu leeyahay dawladda Djibouti culays ku saartay inay dekedda Doorale ka erida DP World shirkadda Shiinaha ee la dacweeyay waa shirkad weyn oo ka shaqeysa dhisidda dekedaha hirgelinta agabka badan iyo konteenarada iyo maamulidda dekedaha waxaana lagu tilmaamay mid qayb ka ah fulinta siyaasadda arrimaha dibadda ee Shiinuhu ku hananayo goobaha muhiimka ah ee Afrika shirkadda Shiinaha ee la dacweeyay waa shirkad weyn oo ka shaqeysa dhisidda dekedaha hirgelinta agabka badaha iyo konteenarada iyo maamulidda dekedaha waxaana lagu tilmaamay mid qayb ka ah fulinta siyaasadda arrimaha dibadda ee Shiinuhu ku hananayo goobaha muhiimka ah ee Afrika shirkadda DP World oo ah shirkad weyn oo maamusha 78 dekedood oo ku yaala 42 dal oo caalamka ah ayaa shirkadda Shiinaha ku eedeysay inay dawladda Djibouti kala shaqeynayso sidii maamulka dekedda Doorale looga dhigi lahaa mid dawli ah si looga eriyo DP World isla markaasina ay booskeeda u gasho shirkaddan Shiinaha ahi shirkadda DP World waxay ku doodaysaa in shirkaddu si qarsoodi ah qayb ahaan u iibsatay saamigii dawladda Djibouti oo ahaa 33% halka DP World ay lahayd 66% isla markaasina ay muddo dheer dadaal ugu jirtay sidii ay boos uga heli lahayd dekedaha Berbera kaasi waxa uu ahaa wargeyska Waaberi ka soo baxay magaalada Hargeysa haatan aan soo qabto wargeyska Hubaaliya cadadkiisii 1408 sarkaal ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland oo xaalad caafimaad u jiifa isbitaalka guud ee magaalada Hargeysa oo fariin qiiro leh u diray taliska ciidankiisa gaashaanle dhexe jaamacaasi oo isbitaalka Hargeysa ku dhex jiifa xaalad caafimaad oo la soo diristay ayaa fariin u diray taliyaha ciidanka booliska waxaanu sheegay inuu waayay waajibaadkii uu ku lahaa taliskii ciidanka ee waa sida uu sheegay muddada 40 sano ka badan uu ka tirsanaa gaashaanle dhexe jaamacaasi ayaa fariintiisan uu ku socodsiinayay taliskii uu ka tirsanaa waxa uu ku bilaabay sida tan waxaan ciidanka booliska ku soo biiray sanadkii 1977 inta waxaan ahaa xubin boolis kamid ah waxaan lahaa talis waxaan lahaa xudun waxaan lahaa meel aan ku arooro dhibaatada maanta ay haysataa waxay noqotay waxaan waayay meeshaydii taliskii baan waayay waxa la dhex dhigay oo aan muddo bila dhex aalaa dad odayaal ah oo gaboobay mar meel baa la ii jiidaya oo la ii eriya marka dhibkaygu waxa uu yahay waxaan waayay meeshii aan 40 sanadood ku aroorayay ee hilowga badan ii hayay ee aan islahaa waa meesha ku aasi doonta aakhira wax la isuma ahe waxaan idin leeyahay haddaan dhinto hay aasinina ayuu yiri gaashaanle dhexe jaamacaasi mar kale aynu eegno wargeysyada ka soo baxa magaalada Muqdisho iyo waxay qoreen wargeyska xogdoon ee ka soo baxa magaalada Muqdisho ayaa wax ka qoray warbaahinta dawladda Uganda oo baahisay tala cajiib ah oo Museveni uu siiyay madaxweyne Farmaajo sidoo kale wargeyska xogdoon waxa wax ka qoray Amisom ayaa ku dhawaaqday qorshaha cusub ee ay ku wajahayso dagaalka Al-Shabaab Yamamoto horumar iyo nabad kama dhalanayso geeska Afrika haddii aysan Soomaaliya nabad ahayn wargeyska kale ee xogogaal ee isna ka soo baxa magaalada Muqdisho ayaa wax ka qoray mid ka mid ah wasiiradii oo shalay magacaabay madaxweynaha Koonfur Galbeed oo xalay iscasilay wuxuu kale wax ka qoray wargeyska xogogaal Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo kulan la yeeshay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya qodobada qaar ee wargeysyada ay wax ka qoreen ayaan gudaha u gali doonaa aan ku bilaabay wargeyska xogdoon ee ka soo baxa magaalada Muqdisho ayaa wax ka qoray dawladda Uganda oo baahisay tala cajiib ah oo Museveni uu siiyay madaxweyne Farmaajo warbaahinta dalka Uganda ayaa baahisay hadal ay ka soo xigatay madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni oo ahaa tala cajiib ah oo uu siiyay madaxweyne Farmaajo qoraalka ayaa warbaahinta dalka Uganda waxay ku sheegeen in madaxweynaha Uganda uu kula taliyay madaxweyne Farmaajo inuu sameeyo ciidamo u abaabulan qaab maleeshiyaad kuwaas oo ugu dambeynna isku bedeli doona ciidan qaran madaxweynaha Uganda ayaa sheegay in ciidamadaasi ay u baahan yihiin taageero
taageero kala duwan kuwaasoo ugu dambeynna loo qaramayn karo si ay ammaanka ugala wareegaan ciidamada amisom ee ku sugan soomaaliya. magaalada addis ababa waxaa kulan ku dhex maray madaxweynaha uganda iyo madaxweynaha soomaaliya, waxaana kulankaasi looga hadlay xiriirka labada dal iyo sidii loo sii wanaajin lahaa. madaxweyne museveni ayaa toddobaad ka hor soomaaliya ku tilmaamay dal uusan ka jirin nidaam dowladeed, waxayna arrintaasi dhalisay carab badan oo soomaalidu ay ka qaadeen hadalka madaxweynaha uganda. waxaana uganda dalka soomaaliya ka jooga ciidamada ugu badan ee qaybta ka ah howlgalka midowda afrika ee amisom. dowladda federaalka soomaaliya ayaa soo dhoweysay go-aan ka soo baxay midowda afrika oo ay ku taageereen shacabka iyo dowladda soomaaliya dadaalada loogu jiro in deymaha laga cafiyo dalka, taasoo muhiimad gaara u leh nabadgelyada iyo horumarinta soomaaliya, maadaama ay hortaagan tahay arrintaasi taageerada hay-adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha adduunka. dowladda soomaaliya waxa ay ku howlan tahay ka shaqaynta dadaalada horumarinta iyo dib u habeynta hanaanka maamulka maaliyadda ee dalka si loogu guuleysto qorshaha deen cafinta ee soomaaliya. si loo helo horumar waara, midowda afrika wuxuu iftiimiyey xiriirka, iskaashiga iyo taageerada kala dhexaysa afrika. qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda soomaaliya ayaa lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay xushmeynayso in midowda afrika ay muhiimad siiyaan doorka soomaaliya ee midowda iyo waxyaabaha u qabsoomay ee la taageero. soomaaliya waxay u muujiyeen inay xibin buuxda ka tahay midowda afrika, waxayna dowladda federaalka soomaaliya ururka midowda afrika uga mahad celisay taageerada ay u muujiyeen, taasoo ah in laga cafiyo deymaha lagu leeyahay dalka soomaaliya. waa hagaag daawadayaal, markaana aan u imaado wargeyska xogogaal ee ka soo baxa magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya. wargeyska xogogaal ayaa wax ka qoray faahfaahin ka soo baxaysa dagaal shalay ka dhacay gobolka baay. dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed oo dhinac ah iyo al-shabaab ayaa shalay ka dhacay deegaan duleedka ka ah magaalada baydhabo ee gobolka baay, waxaana dagaalka xooggiisu uu ka dhacay fariisin ciidamada dowladdu ay lahaayeen oo al-shabaab ay soo weerareen. al-shabaab ayaa la sheegay in weerar xoogan ay ku soo qaaday bar kontarool oo ciidamada dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed soomaaliya ay ku lahaayeen duleedka magaalada xarunta u ah gobolka baay ee baydhabo, waxaana saraakiil ka tirsan ciidamada dowladdu ay warbaahinta u sheegeen inay iska caabiyeen weerar gaadmo ahaa oo kaga yimid dabley ka tirsan al-shabaab. saraakiisha warbaahinta la hadashay waxa ay sheegeen in deegaanka dagaalku uu ka dhacay ay haatan gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka koonfur galbeed, waxaana la sheegay in al-shabaabkii goobta soo weeraray ay dib ugu laabteen goobihii hore ee ay kasoo duulaan tageen, sida ay sheegeen saraakiishan uu soo xiganayo wargeyska xogogaal ee kasoo baxay. wargeyska xogogaal sidoo kale waxa uu wax ka qoray amisom ayaa sheegtay qorshaha cusub oo ay ku wajahayso dagaalka al-shabaab, iyadoo lagu wado in ciidanka midowda afrika ee ku sugan gudaha dalka soomaaliya in qaar ka mid ah saldhigyadooda howlgalka ee aagga hore ay albaabada isugu dhiftaan bishan febraayo kadib marka 1000 askari laga dhimo tirada guud ee ciidanka amisom. ayaa taliska sare ee amisom waxay soo bandhigeen qorshe ay sheegeen inay ku wajahayaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab. taliyaha cusub ee ciidanka amisom generaal tigabo yilma ayaa sheegay in diiradda la saari doono howlgallo weerar ah oo lagu bartilmaameedsanayo saldhigyada al-shabaab ay ku leeyihiin qaybo ka mid a gobolada koonfurta iyo bartamaha soomaaliya. generaalku waxa uu sidoo kale sheegay in 2 toddobaad ka hor xilliga kala wareega ay ciidamada amisom ku dadaali doonaan inay saldhigyo cusub ka qabsadaan al-shabaab, wuxuuna sheegay inay qorsheynayaan in dhammaadka bishan febraayo dalka soomaaliya laga saaro 1000 askari oo ka mid ah ciidamada midowda afrika ee amisom. waa hagaag daawadayaal, weli waxaad daawanaysaan wargeysyada magaalada muqdisho. wargeyska xogogaal ayaa wax ka qoray Donald Yamamoto, waxa uu sheegay horumar iyo nabadgelyo kama dhacayso geeska afrika ilaa iyo inta soomaaliya nabad laga helayo.
safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto ayaa sheegay in dowladdiisu ay wax badan ka caawin doonto Soomaaliya isagoona dhinaca kale sheegay in Mareykanku ay hadda ku soo laabteen Soomaaliya isla markaana uusan mar kale dib uga bixi doonin. Yamamoto ayaa hoosta ka xariiqay inay ka shaqeyn doonaan sidii Soomaaliya looga caawin lahaa cafinta deynta si qarashka deynta ay ku gudi lahaayeen ay ugu adeegsadaan kaabayaasha kale ee dhaqaalaha iyo horumarinta nabadgelyada. Yamamoto waxa uu sheegay in Geeska Afrika aysan nabad ka dhalan doonin ilaa iyo inta Soomaaliya nabad laga helayo. Safiirka dowladda Mareykanka ee Soomaaliya Ambassador Donald Yamamoto ayaa intaasi ku daray in hay-adda USAID ee Mareykanka kaalmada u qaabilsan ay taageeri doonto shirkadaha waaweyn ee Soomaalida si uu soo kabto dhaqaalaha Soomaaliya. Wuxuuna sheegay in qaybo ay ka mid yihiin korontada iyo biyaha laga taageeri doono Soomaaliya si dadka Soomaaliyeed ay u helaan buu yiri biyo iyo koronto qiimo jaban. haatanna aynu eegno xubintii ibraha bulshada iyo waxa ay qoreen. The African Voice ayaa barteeda Facebook soo dhigtay qaar ka mid ah dadka deegaanka Marsabit ee dalka Kenya ayaa cabasho ka muujiyay biyo wasakhaysan. Si ay hogaamiyaha ugu sheegaan inay biyo uskaga ay cabaan, dowladuna ay ku guuldareysatay inay biyo nadiif ah soo gaarsiiso. Waxay soo qaateen caagado ay ku soo dhaamiyeen biyo wasakh leh, waxaanay u keeneen hogaamiyayaasha ku guuldareysay inay biyo nadiif ah dadka u sameeyaan. Khadar Cabdi Cabdilaahi ayaa bartiisa Facebook soo dhigay sheeko faneed ka hadlaysa siyaasadda. xiisadeenu maanta waxay ka hadlaysaa kartida. Waa maxay kartidu? Intaanan sharaxin, go'aan adeeg ayaa garanaya. Adiga haye macallin, wax kastoo dhacaya waa inaad noqotaa tiisa wati aan loo taaghelin. Excellent. Tusaale ayaa ka bixin kara. Adeer Muuse waa nafta qura aaminsan in dalku midaysan yahay. Ibnu Xalaal waa iga farxisay maanta. laakiin macallin taasi malaha go'aan adeeg maahe waa indha adeeg. Aamus saaqdiyahow. Indha adeeg waa waxa adeerka Faysal oo 3 loo tumay weli la soo taagan yahay. Macallin inaad tiraahdo waa layga shubtay, mar kalena tiraahdo waan kaftamayaa. Maxaa lagu sheegi karayaa iyada? Hodhodho ayaa la yiraahdaa. Casharka bari ayay ku jirtaa. Kaasna waxa uu ahaa Khadar Cabdi Cabdilaahi oo bartiisa Facebook soo dhigay sheeko faneedaasi ku saabsan siyaasadda Soomaaliland. Codka Bariga Afrika ayaa bartiisa Facebook soo dhigay qoraal weydiin ah oo la xidhiidha heshiiska dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo shirkadda Shiinaha oo kalluunka Soomaaliya heshiis lagula galay. Qaar ka mid ah dadweynaha oo aarah ka soo dhiibtay. Amar Macalin Faarax ayaa isna waxa uu yiri waxaan u arkaa inay tahay masiibo qaran oo baaxadeeda leh, maxaa yeelay badaheenu ma laha ciidamo ilaaliya, sidaa daraadeedna waxay u sahlaysaa inay sidii ay doonaan ugu xadgudbaan. Heshiiska lala galayna maadaama ay cad tahay inaanay jirin cid dabagalaya xisaab ku samaynaysa, sidaa daraadeedna waa masiibo qaran. Anuu shidaalna garan maaye markii aan arkay muuqaalkan raggan waxaan moodayay inay xadhiga ka jarayaan safaaraddii Somaliland ku yeelanayso Soomaaliya magaalada Muqdisho. Waxa uu dambeeyay qodobkaasi ka hadlayay heshiiska kalluumaysiga ee Shiinaha iyo Soomaaliya. Saqaawudiin waxa uu leeyahay ruqsaddaasi waa sharci darro, waayo dad dalkoodii dowladlaani ka jirtay 25 sano dastuurkiisuna qabiye qoraal uu yahay, awooduma leh inay ruqsad ku bixiyaan khayraadka dalka in la rarto. Shacabka Soomaaliyeedna waxba kama oga, raallina kama aha in kalluunkooda la boobo, waayo shacabka Soomaaliyeed xoolo dhaqato iyo kalluumaysato ayay isugu jiraan. Dhaqaalaha dalkuna xoolaha iyo kalluunka ayaa uu ku dhisan yahay. Xasan Fasax ayaa isna waxa uu yiri wax dhiba ma leh haddii heshiis wax lagu bixiyo, laakiin dadka mas'uuliyiinta ahi waa inay iska fiiriyaan waxa ay saxeexayaan. qiimo hal maalin ah yaanu inaga cunin wax gaadhaya 1 sano waa tala soo jeedin baa uu yiri. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo bartiisa Twitterka ku qoray ereyo uu kala saari waayay weedho oo ka soo yeedhay madaxweyne Biixi iyo wasiir Sacad Cali Shire. madaxweyne Muuse saldhiggii militariga ka kireeyay dowladda Imaaraadka. Wasiir Sacadna waxa uu leeyahay kira kama qaadano, keebaa run sheegaya, keebaa shacabka been u sheegaya. Shacabkayga ayaan daranaa. Sidaasi waxaa qoray gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. Ambassador Axmed Safina ayaa bartiisa Twitterka soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo xildhibaan Ilhaan Cumar iyo hadalhayntii ugu dambeysay. Sawirka toddobaadkan warbaahinta bulshada loogu hadalhaynta badnaa waxa uu ahaa sawirka haweeneyda Soomaaliyada ah ee ka tirsan golaha wakiilada dalka Mareykanka waa Ilhaan Cumar oo hadalla ay barteeda Twitterka ku faafisay
ay abuureen buuq siyaasi ah. In madaxweyne Donald Trump ka dalbado inay iscasisho iyo in xisbigeedu ku qasbo inay raaligelin bixiso. Ambassador Axmed Safina oo bartiisa Twitter-ka soo dhigay sawirka xildhibaan Ilhaan Cumar iyo madaxweyne Trump ayaa ku qoray erayo uu ka soo xigtay Ilhaan oo u jawaabaysa Trump. Ereyadaas oo afka Carabiga ahaa ayaa uu macnaheedu noqonayaa xildhibaanada xisbiga dimuqraadiga ugu jirta Koongareeska ayaa madaxweyne Trump oo ka codsaday inay iscasisho ugu jawaabtay weligaaba waxaad ka baayac mushtari jirtay nacaybka yuhuudda, muslimiinta, dadkii asal ahaan dhulka Maraykanka u lahaa, soo galeytiga, dadka madow iyo kuwo badan oo la mid ah. Haatan waxaad cashara ka baratay dadka ay ereyadaadu dareenkooda taabteen. Haddaba adigu goorma ayaad iscasilaysaa? Adeeqa Maxamed Geedjoog ayaa bartiisa Facebook ku qoray qoraal uu ku sheegay haddii ay cidi garanayso maalintii uu geeriyooday Cilmi Boodhari aynu wada eegno xubinta. ma jirtaa cid garanaysa ayaantii uu Boodhari dhintay si aan ugu aqoonsanno maalinta jacaylka Soomaalida. Codka Bariga Afrika ayaa mar kale daawadayaashiisa fikirkooda la wadaagay la xidhiidha joojinta abuugga hadiyad jacayl oo Burco laga horjoogsaday. xamse siyaado joogta Hargeysa ayaa iyaduna waxa ay leedahay culimada Soomaaliland waxaan leeyahay waxyaabo ka xun ayaa lagu sameeyaa. Tani waa buug dhalinyaro ay qortay horta hagaajiya dhaqamada ka socda habeenkii meelaha la isugu yimaado. markaa ayaa tanna u soo jeesan kartaan ayaa ay leedahay xamda. Faadumo Muumin oo joogta magaalada Boosaaso waxay leedahay arrinkan waan ka soo horjeedaa waayo inagu muslimiin ayaa aynu nahay mana wanaagsana inaan ku dhaqanno dhaqan reer galbeed. waxay tiri magacayga waxaa la yidhaahdaa Raxma waxaan joogaa Burco. horta marka hore wax walba dhibaatadiisa iyo dheeftiisa ayaa la eegaa. hadday dhibaatadiisu badan tahayna in laga tagaa fiican. markaas haddii dhalinyarada aan isqabin meel la isugu geeyo oo ay dhahaan waan ka qayb galaynaa sida lamaanaha dhibaatadeeda leedahay diinteennuna ma ogola. xitaa dhaqankeenna ayaa ka soo horjeeda. marka anigu in la joojiyo ayaan raacsanahay. Nimco Siyaad oo joogta Boorama ayaa iyaduna waxay leedahay waxyaalo ka daran ayaa ka dhaca dalkeena gudihiisa laakiin ma aha in lagu mashquulo wiil buug qoray maalinba waxba calanka saaran waxaan waxba ahayn ee daaya buugga. culimada waxaan leeyahay fusuqa badan ayaa ka socda Somaliland gudaheeda. Maxamed Baashe Xaaji Xasan oo isna bartiisa Facebook soo dhigay qoraal uu kaga hadlayo 80 milyan ee la isku turtuurayo. 80 milyan ee dollar ee la isku turtuurayo sanad iyo 2 bilood kadib markii digada iyo dambaska la kala wareegay. Dr. Saad oo labada jeerba joogay oo xeedhooyinka salkooda wax ka ogaa ayaanu dhaafiye talow dhismihii madaxtooyada cusub Muuse ma joojinaya. waxaan sidaas u leeyahay iyadoo aan markii hore arrintaasi mudnaanta koowaad, labaad, saddexaad, afraad iyo shanaad toona lahayn ayaa hadda xukuumaddu inoo sheegtay in ka badan 1.5 milyan oo qof oo u dhigmaysa in ka badan 40% tirada dadka Somaliland ay u baahan yihiin gurmad degdeg ah oo ay dadka iyo dunyadaba ay soo food saartay xaalad adag oo ah cunto la'aan, biyo la'aan iyo baad la'aan daraf ilaa darafka kale, bari ilaa galbeed, guban ilaa xeeb, nugaal ilaa hawd iyo oogo. Xuseen Mahdiinah waxa uu isna ka hadlay eedeymaha la sheegay in ay la kala wareegeen madaxweyne Biixi iyo Siilaanyo. maanta oo sanad iyo bilo laga joogo xil wareejintii Siilaanyo in muran iyo dood ku saabsan deymo xilligeedii la cadeen waayay in soo gasho ma ahayn samsamna inay ka hadasho iyana ma saxna. sababtuna waxa weeye war toos ah oo xukuumadda madaxweyne Muuse ka yimid ma jiro. haddii isku tuurtuur labada dhinacay soo baxeen eedda waa la wada leeyahay. mid la yidhaahdo waxaan oo dayn ahi ma dhacayay ahaayeen iyo mid la yidhaahdo maalinkeedii maxaa ku aamusiyeyba. Maxamed Caydiid ayaa isna bartiisa Facebook soo dhigay wiil talooyin iibinaya oo Hargeysa ku nool. aynu wada eegno wiilka iyo talooyinkiisa. maanta oo aanu suuqa Hargeysa kula kulannay wiilka dhalinyarada ah ee ku caanbaxay 10 talo ku iibso $1 aniga injineer Qadar Muuse iyo Cabdiraxmaan Jaamac. sawirku waa warqadii ay ku qornayd 10 talo ee aanu ka iibsanay annagu soo dhaweynay adna. Hodan Xirsi Afrika ayaa soo dhigtay barteeda Facebook sawir micno badan sameynaya oo ka hadlaya noloshii shalay iyo tamaanta. inta waxay nooga barnaamijkii wargeysada iyo warbaahinta baraha bulshadu ay qoreen oo idinkaga imanaya codka Bariga Afrika. waxaan idinla socodsiinaya anigoo Xamse Xirsi Xayda. intaan barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono. Salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh.